السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا Soomaaliya Funny Media magacaygu waa Cabdiziz Mohamed maantana waxaan ilaahay tobanka madaxweyne ugu hantida badan qaaradda Afrika lambar 10 madaxweyne Joseph Kabila waa madaxweynihii hore ee DRC Congo hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 70 milyan oo dollarka Mareykanka Joseph waxa uu dhashay 4 June 1971 isagoo xukumayay Congo 2001 ilaa 2019 waxa uu xilka qabtay kadib markii uu aabihiisa la dilay fadlan haddaad ugu cusubtahay subscribe saar gambalaalkan furo si aad u aragto waxyaabaha aan soo dhigno iyagoo ah kuwa ku xiisi gelin doona 9 boqor Swati waxa uu dhashay April 19 1968 waa boqorka New Zealand hantidiisa lagu qiyaaso 100 milyan oo dollarka Mareykanka waa madaxweynaha sagaalaad ugu qanisan qaaradda Afrika waxa uu xilka hayay in ka badan 30 sano 8 madaxweyne Hage Geingob waxa uu dhashay sanadkii Agosto 3 1941 waxa uu soo noqday ra'iisul wasaare sanadkii markuu ahaa 1990 ilaa 2002 sidoo kale waxa uu ra'iisul wasaare soo maray 2012 ilaa 2015 waa madaxweynihii saddexaad ee soo maray Namibia ilaa iyo haatan talada haya waxa hantidiisa lagu qiyaasay in ka badan 110 milyan oo dollarka Mareykanka waa madaxweynihii sideedaad ee ugu taajirsan qaaradda Afrika تدو مدحوين سياسي أفواكي ومدحينا إيرتريا وحانتيسا لو قياسها 120 مليون دولار كمريكانكا وحاول شيء لودي فوبر يكون سجال بقول فرتن اللي حدي ومدحينا كواد إيرتريا لا يحرم مدي يكون سجال بقول سجاشين يسد حدي ومدحينا تدواد وقنسان قارة أفريقيا مدحينا بول بيا ومدحينها كاميرون وحاول شيء فبراير 23 كون سجال بقول سجاشين يسد حدي وحاول حلكا laga soo bilaabo 6 November 1982 waxa hantidiisa lagu qiyaasay 200 milyan oo dollarka Mareykanka waa madaxweynaha lixaad oo hantida badan qaaradda Afrika fadlan haddaad ugu cusubtahay subscribe saar gambalaalkan furo si aad u aragto waxyaabaha aan soo dhigno iyagoo ah kuwa ku xiisi gelin doona 5 madaxweyne Uhuru Kenyatta hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 500 milyan waxa uu dhashay 26 Oktoobar 1961 waa siyaasi iyo ganacsade caan ah waa madaxweynaha hadda talada haya wadanka Kenya waxa dhalay madaxweynihii ugu horeeyay ee Kenya Jomo Kenyatta waa qofka ugu hantida badan wadanka Kenya kaalinta shanaad ayuu kaga jiraa qaaradda Afrika 4 madaxweyne Paul Kagame waxa hantidiisa lagu qiyaasay in ka badan 500 milyan oo dollarka Mareykanka waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1957 waa siyaasi iyo hogaamiye sare ee hore ee ciidanka militariga waa madaxweynaha hadda talada haya ee wadanka Rwanda 3 madaxweyne Teodoro Obiang waxa hantidiisa lagu qiyaasay in ka badan 600 milyan oo dollarka Mareykanka waxa uu dhashay 5 June 1942 waxa uu u dhashay wadanka Equatorial Guinea waxa uu xukunka hayay in ka badan 40 sano isagoo Afgambi ku qabsaday 1979 lawo madaxweyne Ali Bongo Ondimba hantidiisu ay tahay 2 bilyan oo dollarka Mareykanka waa madaxweynaha labaad ugu qanisan qaaradda Afrika waxa uu dhashay 9 February 1959 Ali Bongo waxa dhalay madaxweynihii hore ee laga soo bilaabo 1967 ilaa iyo dhimashadiisa 2009 waxa uu madaxweyne u yahay wadanka Gabon ilaa iyo 2009 Gabon waa wadanka shanaad ugu dhoofinta badan saliidda qaaradda Afrika boqor Mohamed VI waxa hantidiisa lagu qiyaasay 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka waxa uu dhashay 21 Agosto 1963 waxa uu noqday boqor kadib markii uu aabihiisa dhintay waa madaxweynaha wadanka Morocco Mohamed VI waa madaxweynaha ugu hantida badan qaaradda Afrika fadlan haddaad ugu cusubtahay subscribe saar gambalaalkan furo si aad u aragto waxyaabaha aan soo dhigno iyagoo ah kuwa ku xiisi gelin doona